yuusuf maxamed siyaad indhacade oo ka hadlay dagaalka ka socda magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa taageero u muujiyay dowlad goboleedka Galmudug isagoo tilmaamay in ahlu sunna aysan mudnayn in wada hadal lala galo. Indhacade waxa uu ahlu sunna ku macneeyay kaan kara aan xal lahayn la gooyo mooyaane, isagoo markaa ku tilmaamay in dagaalka lagu wado ilaa inta laga guuleysanayo oo la soo afjarayo ciidanka ahlu sunna ee ka dagaalamaya gudaha magaalada Guraceel. Sidoo kale waxa uu sheegay in ahlu sunna ay dhowr dowladood gorgortan la gashay oo horey loo siiyay xilal dalacsiin ciidan iyo lacago badan, balse haatan laga ogolaan karin in ay gorgortanka sii wadaan. Haddaba waa kan Yuusuf Indhacade oo arrimahaasi ka hadlaya. runta horta aadan uga xumahay waxa meeshaas ka socda boqolkiiba boqol aadan uga xumahay. cid kasta oo Soomaaliya oo caqli lana waa waxay ka xumaato. intaas kadib nimankan ahlu sunnada sheegta xilligii Sheekh Shariif dowladda Sheekh Shariif wasiirada laga siiyey, saraakiil alla la siiyey, lacagaa la siiyey, waa la heshiiyey dowladdii inay ku milmaano dowladda ka mid noqdaan sidaan ahlu sunna warkeedu uu ku dhammaado. doorashadii markii la gaaray xilliga Xasan Sheikh ay soo kaceen, haddana qoryada soo qaateen, haddana Xasan Sheikh la heshiiyey, garaadaa la siiyey, lacagaa la siiyey, xiradaa la siiyey, waa lala heshiiyey. haddana haddeer way ka baxeen ballanta, Xasan Sheikhna way ka baxeen, Sheekh Shariifna way ka baxeen. haddana hadda markii uu yimi farmaajo Xasan Cali Khayre iyo waad ogtihiin ilaa jananaa la siiyey, ilaa jenaraal, ilaa xidigle aa la siiyey, wax walba lagu heshiiyaa la siiyey. 37 xildhibaan yaa maaqan aa la siiyey oo Soomaaliyu lahayd oo qabiilaadkii lahayd ay dhaheen haddii nabad lagu helaa ha la siiyo. haddeer markii doorashadii bilowday ay haddana meesha ka bilaabeen. nimankaas horta waa kaan kara, waa fidmo, waa kaan karana in qofka la gooyo maahane xal kale male. nimankaasu way dhimaa ha dhinteen, qofkii dhimaa ilaahay wadkiisa galaa dhimanaay. amaa dowladda Galmudug waa inay meesha u adkaato, nimankaa meesha ka saarto. amaa waa in wax Galmudug leeraa meesha ka baxaanoo ayagu ay la wareegaan meesha. yani xal kale oo imaan karaa ma jiro. wada hadal horaa loogu daalay, in lacag la siiyo horaa loogu daalay, garaadda horaa loogu daalay, yani wasiirra waa la siiyey. macalin maxamuud wasiirkii la qarxi jiray Allah u naxariistee walaalkiisa u ahaa, isagoo ku xaniban imaaraadka oo $180,000 lagu leeyahay Sheekh Shariif ka bixiyey, waa keenay wasiirka arrimaha guduhu ka dhigay. waa ku faraxsanayn walaalkii markuu dhintay wiilkiisa laga dhigay. runtii nin aad u jeclaa waay Cabdisamed oo nin maamula waa yani lama xisaabi karo inta la soo maray. marka dhibaatada Guraceel nimankaasay aabba leedahay. waxaana qabaa anugu xal kale inuusan jirin. nimankaas ama waa in laga takhaluso ama ayaga looga soo tago meesha wax ka takhaluso. laakiin dhibaato ayaa dhacaysa oo dadaa dhimanaya, magaaladii waa laga qaxay, maalintii 3 dagaal socda. soo kama habbooneen in Galmudug maadaama ahlu sunna ay deegaankii u dhalatay oo deegaankii ay tahay oo aan laga suuli karin in laga wada hadlo deegaankii sinada ku jooga. sawna ku iri 3 jeer baa la wada hadlay, 3 xukuumadood la hadashay iyo 3 madaxweyne oo la heshiiyey oo garaad siiyey oo lacag siiyey oo waad ogtahay hadda Xasan Cali Khayre iyo heshiisku la galay. markii wax walba la siiyey ay dhuusa maray dhexda xirteen, isbaar dhigteen, waad ogtahay ka dhacay. hadda siyaaran aan rabnaa ay dhaheen imaadaan la siyaaradiina qabsada. siyaaradii markay qabsadeen xabad ka bilaabeen haddana. yani ma aha niman wada hadal, nimankan wada hadal yani impossible waa wax wada hadal ah oo nimankan ku qancayaan oo soconaa ma jiraan. xataa Galmudug haddii la siiyo kuma qancayaan dowladda ay ku darsadaan, ma qancayaan nimankan. si walba la yeelay
والله لا هاللي سكرستان سمايني ما غبغنا دجيدين فيري قرآل معايا يعني ضمير حمد هذا فيري المية ناقد دفيس كدكتين يضل مساكينة يقول دفيس كدكتين قولي هودي فيري ضمير حمد هذا ده الدين له علماه وذا داه وفهمه إسلانا ساس ما يلان نفا ما يلان حتى وحن يلين قال هذا بلا دين تأه يا أي ممنوع كتا إن المية ناقد دفيس كدكتان وما يلون دفيس كدكتان حتى قالت بلا دين تأه كعشوت marka yani in anugu waxaan u jeedinaa maamulka galmudug madaxweyne qoorqoor weliba sida u dagaalamaa sax ma dagaalku inuu saatan dagaal qorshaysan oo taas ka qorshaysan la rabay waa dadkan la soo yaacay ahayn ciidanka meesha lagu soo yaaciyo faraha badan marka dadka meesha ku jiraan ma badna marka ciidanku hadday bataan dhimashada badane ciidan qorshaysan oo tayaysan oo tabaysan ayaa la rabay wax kasta ma dhaane madaxweynaha galmudug qoorqoor waxaan leeyahay madaxweynaha galmudug waa adiga dowladda galmudugna waa dowladda galmudug madaxweynaha ka tahay gorgora in laga galana maahan gur'aal way ka dheelaa waa ka dhaceen way ka qaxlaa waa ka qaxeen way ku dhiman lahaa waa ku dhinteen ayaga iyo hadda waxaa soo haray ciidanka dowladda waa in aad arrintaas meel xididkeeda soo siibtaan leh dhinaca kale dadku waxay leeyihiin doorashooyinkii oo lagu jiro oo dhuusamareeb iyo gaalkacay la doonayeen doorashooyinka golaha shacabka ka dhacaan haddii galmudug dhinacna ay dagaal ka gasho saameyn ay ku keenaysaa doorashooyinkii marka arrimihii doorashooyinkii iyo dagaalka mis xataa dhexlaya kuma keeni karto haddii uu daacad ka yahay madaxweynuhu galmudug qoorqoor hadduu daacad ka yahay gacantaana bidixdana ayagu kula diriraa midigtana doorashadu ku qabana ayagana waa labadaba waa la qaban karaa hadduu asagu daacad ka yahay hadduuse asagu dhufays ka dhiganayn oo asagu dagaalaa socda ahlusunaan la dirira oo raba inuu ka dhigto yani dib u dhac iyo riisan wax kale waa laakiin dib u dhac uma imaan karo jarnaal waxaan isweydiinayaa 3 maalin dagaal ka qaatay ee gurceel oo degmo yar ah ka socda halkee taageero ka helayaan ahlusunna ogaanta ahlusunno qalaadaada jira ay dowladda galmudug samaynay ahlusunno dad caabud waaqa u furan oo u bannaan oo mar kasta yani ciidan iyo gurmudug imaana iyo rasaas waa in wadooyinka looga soo galo dhan la xiro ahlusunno anu ahlusunno dhahi maayo nimankaas ahlusunno ma ahlu shar waa ahlusunno ma ahlusunno iyo dad nabigeena sallallahu alayhi wasallam ku abtirsadaaho ilmaheena dhufays kama dhigtaan guryooda ma dhex galaan gabaad kama dhigtaan ahlusunno ma ahlu shar waa أهل الدين ما أهل الضلال يعني أهل الدين ما أهل الضلال أهل البادئ ما أهل السنة مسؤولية الدبك كدع على جرعال أيها إسكالة نمك أهل الشرطة أهل الضلال أو بادئ أو يعني حمية ما إسلام كأهل السنة يا أيها كم مسؤولة أغرق يقدموا ماشي إسكالة ديجانا بدنا نقول مدو أيها تطلع حسنا يجوجان daradu soo halkeeda ma kasii socon karto fiiri adeer dowladu waa labo waa inay wax xukunto oy wax maamusho oy si diiniyana wax u maamusho amnigana sugto dadkana xaqooda siido waa in dowladu midu waa taas waay dowladnimona saas waay dowladda labaad waa waxaan dhimana noolayn dadkayna dadka ku dirtaa inay meesha ka baxdaana fiican madaxweyne qoorqoor waxaa la rabaa inuu amniga galmudug gorgorowsi ka geliyo hadday kuwaan tahay iyo hadday kuwa kaloo ahlu shartaa tahay labaduba ahlu share waa inuusa gorgore ka gelin waana ku garab taagannahay waana ku taageersannahay hil iyo hoob fariintaada ugu dambaysa reer galmudug fariinteeda ugu dambaysa reer galmudug waxaan leeyahay reer galmudug dowlad baad leedahay dowlad galmudugaa la yidhaah waad arkaysaan waxaa ka socdaa puntland doorasho qof coodaha ka socota qardho adinkana xabbadaa laydin dhiibay xabbadda xataa waa laydin soo waaridaa reer galmudug caqliyaasha dowladdiinna garab istaaga hiil iyo hooba ku garab istaaga in laydin xukumona ogolaada inaad wax xukuntiin ogolaada qofku marka ogolaada in la xukumo ayuu nabad heli karaa markaasuu kala dambayn heli karaa
markaasuu dhaqaale heli karaa, markaasuu sakuulad heli karaa, markaasuu jiritaan heli karaa. dad waxaan arkay dhahaya qoorqoor saanuu yeela qoorqoor waa madaxweyne galmudug waqtigiisi waaba dhow yahay, waa u baxaa suga ciddii qoorqoor dhaliilahey sug waqti mar waa u baxaa la tartan doorashada, la tartan ka guulayso wax ka fiican waysa la imaamo ummadda wuxuu qabo. laakiin xididkan waxaan ka siibaa geedka si uu u dhinto qof laga yeelaa ma jirto.